السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalihii Soomaaliyeed waa idin salaam dhamaantiin. maantana waxaa kaloo idin wadaa qasad ka dhacday Nairobi, Kenya. qasadani tamar dhow ayay dhacday, way cusban tahay. Nairobi meel ka mid ah ayaa naag oo kuwa Kenyaatiga ah waxay degnaayeen kuwa guriyasha oo houseska ah oo kuwa lacagta leh, adiga waxay ahaayeen dadka adiga iska lacagta wax yar leh ay ahaayeen. ayay ahayd naagtaasito. waxaa dhacday marka ayadoo gaarigeeda wadato oo kasoo baxday magaalada ka imaatay habeen ayayna ahayd, ada 2 saac miya 1 saac miya something like that ahayd. baa gurigeeda marka waxa waa guryaha hoos oo dhulka waayo oo watchmanka ilaalinaya. waxaa waardiiba erida taagan markuu gaariga laga furo. waardiyaha markuu erida ka furo oo gaarigaada agalisid waa inuu xiro waayo. naagtan marka war ay ka haysid malaha. markay gaarigeeda ay gudaha soo gashay waxaa ka soo daba gashay 5 nin oo qoryo wataan ayaa ka soo daba gashay. gudaha ay u soo galeen. ninkana marka oo waxa ilaalinaya waardiyahana wuu cararay. naagti waa la istaajiyay, waa la qabtay. markii la qabtay naagti waa la baartay, gaarigii ay ka bixiyeen, gudaha ayaa la galeen. adana si wanaag may dilin, gudaha ayaa la galeen. marka ilmaheeda waa ilmo weyn ay ahaayeen. gudaha markii la galay fadhiga ayaa la geeyay, ilmihii laga soo kiciyo oo jijiifo wixii oo dhan banaanka waxa la isku keenay fadhiga. waa la baartay, adiga wixii lacag ay haysatay waxaa la qaatay gaarkeeda bangiga wixii dhan way ka qaateen, laakiin si wanaag may dilin, ilmaheedana may ka dilin. ninkeedana wuu maqnaa, safar ayuu jiray. marka qasadaas oo saas oo kale ay dhacdo waxaad u malayn kartaa marka inuu qofkaasi yani meesha qofku gabadhan waa la sugayay, meesha ayaa lagu sugayay. marka ma dhici kartaa ninka waardiyaha ah inuu ka dambeeyo. waxa uu joogta gabar shaqaale ah oo ayadana CCTV-ga camera ayaa gurigooda ku xiray. CCTV-ga ayay tusinaysa naagtan inay company ku wareegaysa, yani guriga dhexdiisa banaankiisa ay ku wareegaysa iyo yani sawirkeeda iyadoo meesha socoto ayuu tusinayay. ma dhici kartaa marka inay ayada ka dambeyso ay nimankan soo gelisay. waxaa kaloo hadda laga shaksan yahay ninkeeda ayada qabay. ninkeeda markaa safar ayuu jiray. waa la daba galay marka. Kenya baryahan caadi maaha, dababaaryaashooda dhaqso waa la helaa. waxaa lagu sugay meelaha lacagta laga baxsada Embasa ayaa lagu sugay. waxaa marka meeshii marka lagu sugaya 2 nin ayaa soo baxday oo marka meesha imaatay. marka waxay baxsadeen marka already $2,000 camal oo lacagta Kenya ay kala baxeen. adigoo 2 nin ayaa lagu qabtay meesha Embasiga ayagoo lacagta kala baxayaan. haddana mar kale 2 nin ayaa hadda la hayaa. marka weli may sheegin wixii ka dambeeyay, laakiin 2 nin hadda waa la hayaa. marka qasadaas ayaa idin waday. wixii hadda Nairobi ku nool hadda inay is ilaaliyaan, because gudaha hadda way soo badatay, waa zaaid way weegaan dhexdiisa. waxay maraysaa intaas oo qof oo laakiin waa dadka wadanka u dhashay ah oo Soomaali ma aha. waxa la raab karayna waa dadka wadanka u dhashay. marka qasadaas ayaa idin waday. subscribe channelkii, waa channel cusuban. waxaan rabaa inaa ii share garaysiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalihii waa idin salaam.